isimada iyo waxgaradka gobolka Cayn kulan ay maanta ku yeesheen magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn ayaa waxa ay ka hadleen xaaladda deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool. Isimada ka hadlay maanta xaaladaasi waxaa ka mid ahaa Garaad Saaban Buraale aw Aadan iyo sidoo kale Suldaan Saciid Cismaan Cali. haddaanu nahay isimada Sool Sanaag iyo Cayn waxaanu cadaynay oo hore u cadaynay oo mar walba cadaynay oo haddaanu cadaynaynaa inaan Somaliland dawlad lahayn wax heshiis la gelin waxaan Soomaalinimo ahayna iyo naga dhaxaniyo islaamnimo iyo darisnimo waxay dalkayga ugu soo duuleen oo isaga soo galeen oo intaasoo sanadood ku joogeen waxaanu diidaynay dagaal na dhex mara oo dhiig ku qulqulo waxay kaliftay in kaarayaashii laga soo qaaday Gabiley Tukaraq la keenay waxaanu la yaabsanay waxay rabaan waxaanu la yaabsanay waxay sheeganayaan waxaanu la yaabsanahay annaga idin xukunno annaga naga mitiin dawladayadana waad ku khasbantiin hadda diidaana waa idin laynayna qarnigii 12aad baa lagu jiraa adduunka wax sida u dhaqma lama arag adduunka oo dhan wax saa u dhaqma lama arag Soomaalina daaba dad aan walaalanahay derisna nahay waxna aan wada samaysan waxna aan ku heshiin oo annaga iyo dhulka yagaba sheeganaya duulaamana soo qaadayay intaa arinta maanta u dambaysa ee sii socota Tukaraq la sii wado la saanood wada xaraysan tahay yaanu ka hadlaynaa waxaan beesha caalamka u sheegaynaa annagu Puntland baanu wax wada dhisanay annagu Puntland baanu heshiis galay annagu Puntland baanu wax la samaysanay laakiin walaalaha iyaga waqooyi heshiis kuma nihin lamana aanu heshiin wax walaalnimo iyo Soomaalinimo ka sokaysa oo aan wada galay ma jirto. sidoo kale khadka telefoonka waxaan kula xiriirnay qaar kamid ah isimada ay ka mid yihiin Boqor Cabdullaahi Axmed Cali Tooboye waa kuwan qaar kamid ah dhamaantood isimada oo ka hadlay xaaladda deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool. jira weeyo aan sagarno meesha ku jira weeyo inanka Somaliland Soomaaliyeedka loo yaqaan anoo shaqo kula lihin dawladda loo wadaagno waa lama amrisan wadiifada lama lihin fara lama lihin waa kala fognahay isku dayaana ma lihin waxaa ku jooga waqardaro iyo xumaan iyo haddii la kureeya qalaqalada ku joogaan iska codeynaa waxaana ku beereeya nooga baxaan haddii alla nooga baxaan oo saba qabtaa saba kala baxaan hadday diidaan waxaa iska codeynaa annagu iyaga baryi mayne dadsan iyaga ugu digaynaa baryi mayno annagu waxaanu baaqaya waxa weeye nimanka Soomaalidiidka aanan shaqo ku lahayn wax la wadaagin ama Soomaali baanu nahay la wadaagno dawlad lama dhisan maamul lama nihin maamulka maalka Puntland baa la yidhaahdaa iyaga kuma jiro shaqo kuma nihin kuwaas ka dhuul qaateen oo ka shaqeeya oo nala magacay jireen laakiin maamul hadi qariidahan waa shaqo kuma nihin waa shaqo ku leeyahay jiraan waxay baadlo ku joogaan iyo qardaro iyo qalad ku joogaan waxaanu sheegnaa dadweynaha aan ku dagaalayno oo iska tirayno magaca buda iska tirayno oo dagaalayno ka gaanayo dib u haysanayn baanu dadka u sheegaynaa dadweynaha u sheegaynaa dadka u sheegaynaa baahida waxa weeye dadka nooga tagaan hadda ka tirayno waxba iska tiraynaa waa ka midaysannahay baaqaas soo jeedinayna Soomaaliland ku hadlaan xadku waa laga gaataba Ingiriis dalka waa wada xukumay waqooyi xadku uu baatay saa u dhigay waa xadka laga gaataba taas waa sida waxa kale inta weelisa dagaalka waxaa maanta dooxa islaamaya wuxuu joogsanayaa laga gaataba gaadho dadkan gaaro xadkiisii gaaro
انت كلام دغال هو waxay marmara joogsanaya si ay la tahay haddii Soomaaliya garaato xaqiiqada dartan qaato dib ugu noqoto dagaarkeeda maamulkeedu ilaa shacbigu beelba uu qoraya waa kala dhexmaayo maamulka Soomaaliya inuu xadka Soomaaliya labada gaataba xagga shir ka baro xagga burca ka baro yaa dagaalku ku joogsan karaa sida muuqata dadkuna markii baabuurada la dhisay meesha dhulbaataya Buuhoodle bay dhisay oo wax ka dhisay oo iyadoo shacbigeedu dhanyahay dhisatay Soomaaliya waa deegaankeedii oo daris baranoo waa dadkan wada nolol deegaankahay in laftooda uga tunaynaa in dagaalka haysato hadday qaladka joogto waayaan abxaaray iyo dagaalka qaban ku walwalida iyadoo inay kala burburto oo kala luto beero dawladda islaamka jecel lahay laakiin xadka iyagu waa labada gaataba dadka shaqadiisa dowladda Soomaaliya maamulka aanu ka tirsanahayna dad qaatay dhistayna waa ka Puntland Soomaaliya wax wada tashi oo baabuur dhisa lama dhaxmarin mana jirto sidaas weeye hadalkaygu waxaan leeyahay Soomaaliya waxaan ku leeyahay walaalayaal ka baxa dagaalka ay leedahay gardarrada xadku waa labada gaataba kuwa noqda ciidamada halka markaa laga wada hadlo nabadda iyo wax si loo wada noolaanayo si loo horumariyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسين حسن حد التلفزيون كعالمي SBS بوهودله.